فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت. فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت. عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا channel كيغا iyo video cusub. maanta insha Allah waxaan ka hadlayaa saddexda wax uu cunuga u baahan yahay intuu yar yahay si uu ama wax kaaga maqlo ama wax markaa baraysid si uu si fiican kaaga barto. saddexda waxa u baahan tahay waxa ugu horeeya uu cunuga u baahan yahay in order uu waxa sheegaysid uu maqlo oo maxaa la dhihi jiray isheeg waxa baraysid uu ka barto. first waxa waaye independence. cunuga haddaysan cunuga markuu camal gaaro waqti uu gacmihiisa si fiican u move gareyn karo, uu socon karo, kind of xooga independence uu soo helay, wuxuu jecel yahay maxaa la dhihi jiray in uu wax kasta isaga adiga aad sameynayso camal inuu sameeyo. marka cunuga wuxuu u baahanayaa independence as much as uu wax sameyn karo inaa u daasid, in aadan wax kasta adiga u qabanin. haddee noqoto cuntada cunuga uu cunaayo in maanta dhan adiga afka u gelgelinin. maxaa la dhihi jiray isheeg hadduu uu rabo biyo in uu ka heli karo meel oo isaga u dhow uu ama kursi kori karo si uu biyihiisa usoo shubto, uusan maanta dhan adiga uusan ku baabaahanin, oo isaga laakiin uu dareemo inuu independent yahay. maxaa la dhihi jiray waxyaalahaas yaryar uu isaga qabsan karo inaa bartid sogsigiisa sida loo xirto si uu isaga keligiis u xirto. waxay tusinaysaa inuu ka mid yahay maxaa la dhihi jiray caailada, inuu ma arkino oo wax sameyn karo uu dareemaya. cayaalkana sometimes waxyaalaha u keena inay maanta dhan qayqayliyaan ama ooyaan markasta kaba uga xiraysid maxaa la dhihi jiray waxaa laga yaabaa in uu rabo cunugaas inuu isaga wixiisa qabsado. marka it's the best time in aa cunugaaga bartid siduu everything u qabsan lahaa. wuu awoodaa markaa wax karinaysid inay marmar oo maradaada kugu dhagaan, waxaa laga yaabaa inay rabaan maxaa la dhihi jiray waxa adiga sameynaysid inay ayagana sameeyaan, in maxaa la dhihi jiray ishag dareemaan inay ku saacideynayaan. independence is very important. haddii oo cunuga hataa oo maxaa la dhihi jiray wax aa baraysid in uu maxaa la dhihi jiray waxa oo la sameynayo isaga uu mid ka yahay, uu maxaa la dhihi jiray isheeg oo just uusan sameynaynin qofkan kusoo dhigay sameey tahay wax uu isaga uu sameyn karo. so cunuga wuxuu u baahan yahay in uu dareemo in uu ma arkino uu isaga waxiisa qabsanayo, in uu maxaa la dhihi jiray caailada ka mid yahay, in uu maxaa la dhihi jiray isheeg waxa adiga sameynayso uu sameyn karo. qaabka aa isticmaalo waxaa la dhahaa cunuga markuu gaaro waqti uu soliskiisa cuno cuntada horta waxa shiidan markuu dhameeyo markii camal waxyaala cuntada yaryar oo la siin karo uu cunayo, inii oo saxan loo keeno uu isaga oo meesha loo dhigo isaga uu cuno. si kastuu u cunaba isaga inii la tusi uu isaga keligiis cuno. waxaa la dhahaa hada instead of barrelska inii la siiyo koob inii la siiyo, wuxuu baranayaa sidii koobka lagu cabi lahaa. marka as much as independent cunugaa ka dhigi kartid inaad ka dhigtid. so that one is very important. taasna waxay soo galaysaa environmentiga cunuga inii laga dhigo wax oo isaga in mind inaad ku haysid markaa oo camal guriga hagaajinaysid. okay, qodobka labaad waxaa waaye movement. cunuga waa inuu helaa movement. aniga waxaan kasoo shaqeeyay I think 3 day cares. saddexda day aniga wallahi intii hataa aanan qaadanin Montessori wayga weligay waxaa aaminsanaa cayaalka in maxaa la dhihi jiray wax tartiib wax ku maqli karaan, liano ani personally ma jeceli dilka iyo waxaas ma jeceli.
marka every time bilaabo shaqada maskaxdeed wuxuu ku jirtay like wax badanaa bedeli kartaa cayaalkasi oo tartiiba ugula hadli kartaa tartiiba u bedeli kartaa and everything but laakiin sometimes the community ku jirtid waxay ku keenaysaa in wixii qaadatid liano you have no other option adiga iyo dadka la shaqeynaysid the same page ma tihiin marka maxaa la dhihi jiray isha waxa ku soo qaatay movementiga usually waxay u badan yihiin inaysan space badan oo cunuga haysanin ama inay oo maanta dhan la dhaho fadhiiso maxaa la dhihi jiray ha istaagin fadhiiso like mar hore videona waa kaga soo hadlay cunug yariis 5 minutes maxaa waaye like 3 minutes ilaa 5 minutes ma fadhin karo meel marka oo meel fadhiisto wuxuu arkayaa waxaasuu interested ku noqonaa wuu istaaga u soo qaada haddana taas waxaa kasii daran cunugi markuusan haysanin wuxuu qabto maxaa la dhihi jira hadduu ama tv u daarneyn ama wuxuu qabto uusan lahayn expect gareynaysid cunugaaga inuu ku fadhiisto taas ma dhaceyso liano cayaalka movementiga ee wax ku bartaan the more ay move gareeyaan adiga iska soo qaada hadda markaa project ama wax uun sameynaysid adigu fadhiyo like wax like hadda camal projectaa sameynaysa like adigoo fadhiyo ma sameyn karta waa inaa like dhinacaan inaa wax kasoo qortid inaa wax soo qaadatid inaa wax sameysid waaye like maskaxda movementiga the more movement ay cayaalka helaan the more wax ay baran karaan waayo waxaan ka wado ama wax ay fahmi karaan so cunugaaga daa oo guriga ku haysid inuu haysto space uu ku ma arkino uu ku bixiyo energy-gu haasto midka ugu dambeeyo oo isagana importantka waxaa waa interest cunuga interestigiisa waa inay waxaan ku jiraan cunug haddaa dhahdid waxaa barayaa alifka laakiin isaga uusan interested ku ahayn no matter what wax kasta sameysid dil wax kasta samey si fiican ma u baranayo you know why because cunugan interested ma ku aha cunuga maxaa ku fahmi kartaa inuu interested wax ku yahay hadda camal hadda cunugaaga observe garaysid aragtid cunugaaga in uu like alaabta intuu soo gadiyo uu soo wada qaado uu ma arkino uu line gareeyo maxaa la dhihi jiray wax kasta uu qaado inuu line gareeyo that means cunugaaga wuxuu interested ku yahay like organizing like waqtiga wuxuu ku jiraa inuu barto ma arkino waxii inii like la organize gareeyo ama order ku jira marka maxaa la dhihi jiray cunuga interestigiisa waa inuu ku jiro waxa uu maxaa la dhihi jiray waxa adiga baroosid waa inuu interestigiisa ku jiro marka keep in mind every time cunug rabtid ama inaa wax u sheegtid ama inaa wax bartid waa inay saddexdaas joogaan maxaa la dhihi jiray independence waa inuu helaa si uu u dareemo maxaa la dhihi jiray isheeg waxaan oo la qabanayo inuu isaga ka mid yahay oo ma arkinoo qayb ka qaadanayo taasna waxay dhisaysaa cunuga confidencekiisa laakiin haddii oo maxaa la dhihi jiray isheeg waalidka maanta dhan cunugii kabaa u xirooaan dharka u xiraan cuntada afka u gageliyaan maxaa la dhihi jiray cadiga hataa ay u cadeeyaan maxaa la dhihi jiray cunugii wuxuu dareemayaa inuusan wax qabsan karin hadhowdina waxaa laga yaabaa inaad ka ishtakootid markuu cunugii weynaado adiga haddaadan meesha joogin inuusan cunugaas wax qabsanin waxaa keenaysa markii yareed markuu yaraa usoo caadeysay inuu adiga wax kasta kaa sugo marka waxaa intaasaa rabaa in aan idinla wadaago insha allah also waxaa rabay in aan idinla wadaago video aan daawaday oo 1 hour oo ka hadlayo mistakeska ee waalidka sameeyaan cayaalkooda markay korinayaan insha allah ingiliishu ku qoran yahay haddaa u baahan tihiin dadka oo like oo ingiliishka fahmayo I will try inaa oo linkiga hoos soo dhigo insha allah haddaa ilaabin maxaa la dhihi jiray
dadka kalena waxaan rabaa in aan everyday like one mistake oo like ka hadlo. waa soo summarize gareyna, waa soo daawanaya qodobada like mistake wuxuu yahay iyo kasoo qaadanaya. insha Allah waa idinla soo wadaagaya. waqti ma u heeyo, mana awoodo in aan videoga ama reaction ka sameeyo ama maxaa la dhihi jiray isheeg isaga dhan oo camal oo hoos Soomaali ugu soo qoro. haddii aa ogtihiin qof ama adiga aad tahay qof oo Soomaaliga ku fasiri karo Englishka Soomaali ku fasiri karo, wallahi it will be really nice in videogaas intaa qaadiin oo Soomaali ku fasirteen, lianno waxyaalo badan uu ka hadlaa. waxaana waaye maxaa la dhihi jiray islamically ooga hadlaya, lianno I can like maxaa la dhihi jiray zaaid waa ugu baahanahay like waxyaalaha saas oo kale lianno cayaalkeena haddii from like yaraan haddaa kasoo fikirin sida cunugaaga u korinaysid, hadhood markuu weynaado oo cunugaas xumaado adigay ku saarantahay. haddaadan no matter what, dad waxaa jiraan diinta cayaalkii barawayo laakiin si oo cunuf u barawayo. so marka cunugaaga hadhood markuu weynaado u xumaado oo adigoo cunugii ugula soo dhaqmaysa markuu yaraa, waxaad cunuga eeda saaraysaa, waxaad dhisaa diintii waan baray, laakiin reality waxaa waaye maxaa la dhihi jiray tarbiyadii sidii ahayd oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahay ma aadan uga soo bixin. let's be honest, like been anaga yaa isku sheegin. marka insha Allah videogaas aniga waa idiin soo wada fasir, waa like mistake usoo qaadana everyday one mistake aan awooda aan idiin soo sameyna insha Allah. also waxaa rabaa videoga igu dheeraada, laakiin last waxaa rabaa inaan idiin sheego tiktokeyga insha Allah waxaan soo saarayaa like maqdacyaal oo like aan kasoo goonaya like muxaadarooyin oo Soomaali sheekhiyo Soomaali sameeyeen oo ku saabsan tarbiyada cayaalka. marka insha Allah tiktokeygana hoosaa soo dhigaya haddaa rabtid like motivation iyo waxaas oo maxaa la dhihi jiray oo ku saabsan cayaalka korintooda, insha Allah meeshaas soo dhigaya igala socda insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.